dhammaan indheergaradka marti sharafta aynu filayna aynu sugayna in badan aynu 20 sanadood baynu bariya galbeed dhinacay naga xigaan bay eegayna inuu rajeynayna inayna soo caawiyaan dalada maandee xubnaha ka jooga culamaa diinka dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta aniga meesha la iiga baahan yahay waxa weeyaan taariikhdii isbitaalkani lahaa isbitaalkani wuxuu ahaa markii aynu dalka joogi jirnay isbitaalkii degmadaynu ahaa laba baraag oo kaliya midna rag leeyahay midna dumar ku leeyahay xafiisyada ka dhisnaa iyo dayrka dhisnaa dayrka oo dhagaxa iyo guryaha oo dhagaxa imika badunsana kadib meel wal oo aynu hadalna dhisma kaga tagnayba markii aynu dalka ka baxnay way burburtay waa la burburiyay wala inooga dambeeyo gacanaan u tudayn baa dhulka inooga dadmaysay isla markaasi ilaa dharaartii aan anagu bilownay iyo ilaa intii ka horeysay dhagaxiisii baa iska rogooyinku iibsan jireen oo guran jireen xabad dhagaxii dhulka may oolin dayrkiisii dumarada ku xeersan markaan uu tagnaan dhagaxii aaway waxay yiraahdeen iska rogooyinka iibiya ayaa dib u iibsado gurtay dhagaxii halka markii ay marayso waxaanu bilownay naqshadihiisiina sawir ka qaadno sawiraanu ka qaadnay kamaradaanu soo kireynay dibadda qofkii nooga yimaadaba qaar baan u dhiibaynay sida Canada Mareykanka hadda la oranayo Scandinavia Ingiriiska dhammaan waanu u wada dhiibnay sawiradiisi isagoo qaawan oo tiinaho cidla magaalada qashinkeedana qashin qubaa laga dhigto oo inta imika halkan aynu fadhino wixii dhanka ka xigtana magaalada dhinaca kaga soo shubaysay wixii dhanka ka xigana magaalada dhinaca ka xigta kaga soo shubayso marka gabigiisu wuxuu ka buuxay tiin iyo xashiish iyo ciidii dhagaxa laga dhaxburtay isla markaa waxaanu bilownay inaynu iska rogooyin soo kareyno kolkaanu sawiradiisii wada gudbinay waxaanu soo kareynay iska rogooyinka magaalada ka shaqeeya maalintii ugu horeysay 8 iska rogaanu soo kareysanay 8 iska rogo iyo kuuligii ku gurayay ayaanu ku gurnay tiinkii baanu markaa uga baqnay inay ragii indhaha ka rido dhowr iyo 10 gudmood baanu soo sameynay ilaa $200 baanu maalintaa ku shaqeynay maalintii ka dambeysay naqshadiisii baanu sameynay injineer baanu sameeyay Hargeysa waxaanu u dirnay Mareykanka way soo sameeyeen naqshad saaray soo sameeyeen way taala dawladda hoose lagu ayaa maxamed yuusuf baa hadda la oranayo yaa haya naqshadii arintii markaa waxay noqotay in waliba anaga nalagu colaadiyo oo la yiraahdo xisbigu waa mucaarid naagaan ka soo jeedaan waa kulmiye isbitaalkuna waa mid dawliya markaa sidee bay u taaban karaan iyagoo mucaarid ah oo kulmiye ka socda 100 goor baa nalagu ashkateeyay waanu dhabaradayno waxaanu dhahay hadii aan mucaaridnay muwaadin baanu nahay muwaadiniin damqadayaalo damqaday dalkoodii baanu inta markii ka dambeysay in kastaabaha dhacday waxaanu haddana sameynay waxaan noo soo dirtay jaaliyad Mareykana ayaa $5,000 noo soo dirtay 5,000 intaan aan soo gaadhin waxaanu meesha soo dhignay ciidii iyo jaygii iyo jaajuurka maalintii horeysay 50 xabadood waxa bixiyay injineer Xasan Jaamac Diiriye 50 xabadoodna waxa keenay Maxamed Yuusuf Mixile Arabsiyo marka 100 xabadood ee jaajuurka iyo waxa noo yaalay jaajuur iyo ciid iyo garig intaas markay noo taalo waxa haddana lagu bilaabay in la xeedho shay wal iyanu doonanay booraan Hargeysa daanta shishaanu shay wal ka soo kareysanay waxaana lagu yiri hadii aad 2 saac 3 saacadood oo sii socda iyo 3 saacadood oo soo socda 6 saacadood oo abartayna deedan kareysaneen idin kama kareynayno gabdhi way fogtaa 6 saacadood waanu diyaar garownay saacadu $35 bay ahayd tiina waanu keenay isla maalintay sidaa u xaadhaysay maalintii ka horeysay bay gudooniyay marwada madaxweynuhu tiri ana dhagax dhigaya yaama taabanin marka anaga oo ka xaadhayna haddana ashkata noo timid marka waxaan la joogay in badan oo inaga adkaystay gudoomiyihii marka degmada joogay Maxamed Cabbaas oo markii dambe nagu soo xidhay $15,000 oo hadii la doonayo la shaqaysa dawladaha hoosana ay nagu soo dareen ayaa maalinta nala jooga halkaan ku dhanay maxaqaad deegaanka kamida sidii aadan oo kale marka waxaan lagu ashkateeyay yaanay hadii la oranayo hortay la sii taataabanin ma aha qashinkii iyo gudaafadii iyo teenkii baan idinka xaadhaynaa waana nula joognaa dumarka mucaaridka waana muwaadiniintii degmada iska lahayd sidaa ku qabow waayahay sidii baan lagu daayay qashinkii dhowr iyo 20 iska rogo magaalada aan soo kareynay haddana على إسكروجا وحن هالمر أو إذنكم معاونة قادان ما هي أنت كلا واحد ليه كردين
kiradoodii baanu siinay dhowr iyo 20 kiiska rogana halkiina way hadii la oranayo ku qaadeen sidii baanu ku xaadnay maalintii ka dambeysay baan anaga dawladda hoose wadanka dhisno noo dalaalimeyno noo qurxinay noo kuraas iyo ubax ku soo dhameynay kadib bay noo dhagax dhigtay way naga noqotay waxa markaa la bilaabay deyrkiisii waa darkaysan waxa lagu qiimeeyay marka hore waa kii idin sheegay maxamuud waxaanu qiimihii dheeraysiinay muntulayaasha waxaanu dheeraysiinay qaraawilka ayaa dheera qiimihii markaa lagu qiimeeyay waxaan ku dhisi jirnay iska xuqan waxaan ku dhisi jirnay baqtiyaa nasiib markay magaaladii Gabilaa wada baahanay dhamaan halkan ku soo dhamaato kuuliyo ustaadba waanu qori ridi jirnay inta nasiibka ku soo baxday maalinta shaqaynaysay intii kalena iyada caafimaad qabtay iska noqonaysa sida arintu markii ay ahayd anagu heerkaas aan ka joognay cusbatalkii waanu dhameynay dhan kasto laga eego waxaan u marinayaa inuu 100 mitir yahay ama in yar ka dhiman tahay laba dhambacna 100 mitir u dhan yihiin la shukran ala alwaajib baan anagu hooyooyinkii baan nahay hooyadu waxay leedahay hadii la oranayo ka ku la dhigi doona iyo ka dheefsan doonaba way dhashay waxa hadii la oranayo cuqdad iyo cudur oo ka qabnaana ma jirto waxa hadii la oranayo abaal marin oo ka jirnaa ma jirto laakiin taariikhdu iyada qori doonta wixii ay u baahato way jiraan hooyooyin kale cusbatalka maanta degmada lagu dhalay umuruhu noogu dhalaan hay'adii u dhistay oo in badan ku xarbeena way jiraan oo dalada wada jir baa iyagana kaana dhistay hadday hooyooyinku meel aad idin leeyihiin iyaga maanta labada meelood ba aasaasay dhaqaalaha guriga anaga dhisano hay'adda keer baa noo dhistay dumarku sidaas ay yihiin laakiin nooma qabaan inaanu hadii la oranayo aanu nahay kacaankii baaba oran jiray waa xoog aan sa garan maangaab oo inta ugu dari jiray marka sida waanu xoog weynahay garaad kale inta leedihiin un baanu leenahay oo hooyo waa tii ku soo korisay wax walba ka soo dhamaysay markaad hoosteeda ka baxin oo wadanadu hadii la oranayo inta darayo inaga dhimatay cusbatal la'aan hadii ay ama 4 sano 5 sano 6 sano ka horay inoo soo dhismi lahaa aynu hadii la oranayo hooyada inta halka laga soo laliyay ama ilaa wajaale ilaa lay baday ilaa iyo geed balaar laga soo qaaday ee aakhirkiina Hargeysa ku go'day inaynu Gabilaa ku aasan lahayn marka taasina waa baylaha idinka dib idinka dhacday waxaan say idinku dardaaraya kuwa gudaha iyo kuwa dibadaba hadii aydan dumarka aaminayno daneeyayaal noqon waayeen idinkuuna is aamina wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh